dhasho dheeftaada cunay ku dhowraya dhulkaygo dhulkaygo dhulkayga Somaliland ruux ku dhasho dheeftaada cunay ku dhowraya dhulkaygo dhulkaygo waxaan ka dhex taagnay calan aan dhacayno dheelay wax kastoo dhacaba hoos loo dhigay tawxiid ku dhigan yahay dhulkaygo waxaan ka dhex taagnay calan aan dhacayno dheelay wax kastoo dhacaba hoos loo dhigay tawxiid ku dhigan yahay dhulkaygo alla dhisno weliga dhisno Somaliland dabanaga ka dhasho adaan kugu dhaadana dhisno weliga dhisno Somaliland dabanaga ka dhasho adaan kugu dhaadana dhulkaygo dhulkaygo الله دسنا وليقا دسنا Somaliland سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم aad iyo aad ayaan idin salaamayaa dhammaanba dadweynihiina sharafta leh ee ka soo qayb qaaday maalintan munaasabadda qaranimada jamhuuriyadda Somaliland ee ka soo wareegtay 33 guuradii 1991 iyo maalintii laga dhawaaqay magaalada Burco waxaynu ku furanaynaa heestii calanka barakaysan ee tawxiidku ku qoran yahay jamhuuriyadda Somaliland dhammaanba dadweynihiina sharafta leh waxaan leeyahay farxad ku ciida aad iyo aad baa mahadsantihiin wuu furan yahay barnaamijkiina wuu inoo furmay heestii calanka Salada sama kuwa Desiashi Aftoda Usade Arima Somalina Desiashi Aftoda Usade Arima Somalina Uskada Dosaku Salada sama kuwa Uskada Dosaku Salada sama kuwa حماسا سنق شبيسا وسد حماسا سنق شبيسا فصالد وتستهل أسلوبا تسلوب كل سلام كل سلام مني ولا kuwan ayaynu leenahay calanka tawxiidka leh waxaan halkan inoogu sugan maanta fanaaniinta dalkani Norway iyo qaar kale oo uu hogaaminayo Cabdirashiid Cali Xamari Nimco Xuseen Obsiye Hanad Yuusuf Cawaale DJ Mahad Xuseen Cadaawe kamaramaankeenu waa Ibraahim
saleebaan waxaan idin leeyahay dhammaantiinba farxad ku ciida mar kale halka iga dambaysa waxaa lagu iibinayaa qofkii u baahan sharaab cunto iyo wax allaaliyo waxa u baahataan hareeraha waxaa lagu iibinayaa calaamadii iyo dabaaldegii waxaan idin leeyahay
afkaaga caraluuqa ustaad xabari sida ala xabari uu ahaa سعيد ويرر كسو دغو غوبتا iyo stage-ka سعيد ويرر aad iyo aad baa mahadsantiin dhammaan dadweynaha sharafta waxaan idin leeyahay happy 18 May mar labaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالنا هل نولاتو سومالنا هل نولاتو ما شاء الله waxaan mahadnaqayaa maanta dadkiina sharafta leh dumar rag caruur iyo dhalinyaro isugu yimid inaynu ku dabaaldegno maanta faras magaalada Oslo ee Youngstorge aad iyo aad baad idinku hambalyeynaya maanta waa maalin qaran oo loo kala hadhin 18 May sanad guuradii 3 ee ka soo wareegtay dib u noqoshada xorriyadda mahadnaq kale waxaan soo jeedinayaa dhammaan intii suurto gelisay inay xafladana si fiican lagu qabsanto hadalkana inagu badin maayo sida iyo ciid wanaagsan shaariyaduna markasta waxay u taagan tahay way heegan tahay sanad kasta inaynu ku dadaalno inaynu ku dabaaldegno maalinteena qarannimada ee qiimaha iyo qaayaha leh waad mahadsantihiin dhammaantiin sidaa iyo farxad wanaagsan ku ciida waxaan haddana u yeedhayaa oo aan siinayaa kelmaddiisa ama khudbaddiisa safiirka wakiilka jamhuuriyadda Somalilan u fadhiya dalkani Norway waa Maxamed Aadan Milan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آديات بان دي سلامية علنك تاغا علنك تاغ ومالنتي علنك ما أنت هو سعودين آديات بان دي سلامية وحان يسيرو دلتاقي دونا دور قضب وكساوسا حفلة ما أنت إنو جوبنو بني آدم كتاريخ دي وكسعدان حقينو كنمت حقينو وسعنا أيينو سويديننا Somaliland waxay ka timid meel fog halkan iyo dagaal bay soo martay waxaynu la soo noqonay gobonnimadeeni waxa aad iyo aad ay tahay maanta oo kale inaynu xasuusanno raggii u geeriyooday calanka ee u dhintay ee carruurtoodu u agoomowday farxaddaynu maanta ku dabaaldegi halkan Norway shalay toole 210 sannadood bay xor ahaayeen 17 May shalay dabaaldegayna halkan Norway 210 buu ahaa innagana waa 33 sannadood kun sano hadday qaadanayso waynu soconaynaa
soo maaha waxaan ku soo gabagabaynayaa in aynu halkan shaqo xoogla ka dhacday jaaliyadda guddideeda Shucayb iyo Siciid saxabka loo tumo waxa weeyaan waanu wada shaqaynay waxaanu soo abaabulnay kulankan oo iyo kulamo kala soconaya waxaan filayaa caawana inay kulamo kala jiraan Soomaaliland ha noolaato waxaan u yeedhayaa xildhibaan Shucayb oo isaga iyo martidiisu stageka ha soo fuulaan waxaa inoo joogaa nin martiya oo uu ku soo dhaweyn doono Shucayb goobtan iyo fagaaraha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات باندي السلام يا دمان رير سوماليلاند رير نوروي آديات بدو سلامنتين واديك رالي عن دونتان wax badan ma sheegayo hambalyo Somaliland ha noolaato adduunyada waqtigan xaadirka hawlo badan ayaa ka jira waad ogtihiin xaaladda Falastiin ka taagan waad ogtihiin dhaqaalaha aad iyo aad u adag ee ka jira adduunka waxyaabahaas oo dhan innagana wayna wajahaya laakiin isku duubnideenna midnimadeenna walaalnimadeenna iyo inagoo gacmaha is haysana ayuun baynu inaguna wajihi karnaa xaaladda maanta jirta maanta waa la ciidayaa markaa maanta dee inaad ciidaan unbaa ma garanaysaa inagu waajiba laakiin hawluhu adduunka way badan yihiin qaybteennana waynu ka qaadanaynaa inagoo gacmaha is haysanana waynu wajahaynaa aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa aad iyo aadna waan idiin hambalyaynayaa Jag ska bara därefter ska jag pröva att snacka norsk. Det krävs av oss att snacka norsk, dessvärre. Sånn er det. Og det er fordi at vi bor i Norge. Vi lever med folk som ikke snakker somalisk. Vi jobber, vi bidrar mye i Norge. Vi er ikke... Jeg vet at mange somalilandere her, de jobber hardt. Og det skal de ha. Og det må vi støtte om. I dag så har vi også gjester med oss som også som skal ønske oss gratulere med dagen. De ønsker også å komme på scenen. Jørgen Foss, kan du komme opp på scenen, Jørgen? Velkommen til markeringen av nasjonaldagen til Somaliland. Tusen takk for at jeg får lov til å komme. For en gjeng, for en fest, for så fantastisk musikk. Nå Jørgen en Somaliland-venner. Tusen takk for de fine ordene. Tusen takk for lov til å komme hit på Youngstorget og være med på feiringen av dagen deres. Kjære venner, kjære medlemmer, kjære alle dere som har vært med å arrangere denne dagen. Somalisk velferdsforening, ærede gjester. Det er en stor ære for meg å få lov til å stå her i dag på vegne av Arbeiderpartiet og markere nasjonaldagen til Somaliland. Shut
Somaliland dhammaan meel kastoo aad joogtaanba maanta waxaan u dabaaldegaynaa 18 May oo ah 3 guuradii ka soo wareegtay maalintii xornimada la soo noqonay ee Somaliland. Somaliland ha noolaato. Somaliland ha noolaato. maanta xaggan waxaan u imid farxadda inaan ka qayb galo siyaasadda ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxaan leeyahay Somaliland meel fiican bay maraysaa ilaahay ha gargaaro ha noolaato Somaliland. waxaan rabaa inaan horta marka hore salaamo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi golihiisa labada golo iyo muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka iyo ciidamada Somaliland ayaan leeyahay salaam kaliya laaba ayaan xaggan Norway uga soo marinayaa saddexda xusbina waan salaamayaa iyakana waxaan leeyahay Somaliland taariikhdeeda waa laga soo sheekeeyay oo dib loogma noqonayo waqtiyo badan bay soo martay maanta meesha ay joogto meel looga baqanayo Somaliland maaha Somaliland waxa weeyaan waad aragteen in lagu soo hiigsanayo la soo maalgashaday ay hore u socoto Somaliland ha noolaato Somaliland ha jirto ha joogto ha jirto caanka kor u qaada ha noolaato waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu halkan ku wada kulanno reer Norway inagoo u dabaaldegaynaa maalintii la soo noqoshada xorriyadeennii luntay 60kii ee aynu soo ceshanay 91kii waa ilaahay mahadii inaynu isku tashannay inaynu maxay hayday aynu samaysanay dawladay soo bedelay xoogaa jugun bayna soo yara gaadhay beri dhaweyde jugtaana waynu ka soo kabanaynaa rag waa kuwii dadku waa kuwii kacee kufaadana intay kufaan kaca qarankaynu ilaashanaynaa inaynu wada ilaashanno weeye bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin farxad leh waa 18 May maanta waxaynu ugu talagalay inaynu dabaal degno inagoo faraxsan si nabadgelyada ku dabaal degno marka waxaan idin leeyahay hambalyo 18 May
talabaadaan idinkala hadlayaan idinkula dardaarmaya waxa weeye ummadda reer Soomaaliland haddaynu nahay walaalayaal waxaynu u baahanay inaynu noqono dad isku duuban qaran ah ilaaliya qarannimadooda meel uga soo wada jeeda ummad kastaaba waxay leedahay oo meel ummad kastoo ilaahay meel ku uumaba waxay leedahay cadowna way leedahay diidan cadow ku ah marka waxa weeye ummadda reer Soomaaliland waa inay shacabkeedu rag iyo dumarba ay yihiin dad koran garanaya cadowgooda cadowga midab ama bacda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliland ha noolaato ha jirto qaran buuxa ha noqoto oo caalamku aqoonsiyo ilaahay ka dhigo waxay dadkeedu ku fikirayaan tuulo wal oo maanta ka tirsan inteedii badnayd oo calanka ilaahay ha u rumeeyo calan adduunka ka babanaya ha noqdo Thank you.
This is from Shadowy Beats.
علي قاري